بسم الله الرحمن الرحيم والسلام ولا ليال ومد الصوماليات وان بشارين يا وندق يا waxaan u bishaareynayaa dadka macrifada la dadkii dunida ugu soo dhibay inay ka fogaadaan qalbiyan waxaan u digayaa dadkii dhibkeega nolosha dadkii nolosha baabiyay waa u digayaa gantaalka aad soo gamida way soo gaari doonaa aynama kuntum aynama makaan meesha joogtiin bin la way soo gaari doonaa walaalayaal degniinta maanta aad jeedinayo u digayo dadkii nolosha baabiyay oo wadamo dhowr wadan caalamka ku kala nool hanjabaada maanta u jeedinayo macna sameeymayso laakiin waxa macna sameeynaysa qowlka ku hadlayo rabbi inuu dhab ka dhigo dhab horaantii 2023 marka magaalada Muqdisho soo gaaray leeyso xoog sheegtay waxa yiri Trabun qoyskii 4 sano bar u soo xamaalayay oo dibkeega soo abaabulay Trabun way gaari doontaa dhagaha ayaa laga furaystay balse dhagaha markii laga furaystay oo qowad markay soo degtay ma celisay waa maya tana waa la mid walaalayaal isla kadalika waa la mid ha warkaan maanta jeedinayo كيرو لمديه ويلشي كوفرافك igu xoog sheegtay oo labaatan wiil loo soo xil saaray dibkayga inay noloshay baabiyaan isoo qixiyay maanta guryahoodii deegaankooda Trabun waa sidee haaluku baaba walaalayaal dibkan duulaanka nolosha lagu soo qaaday dad ayuu quseeyaa dadna ayaga isku diraaya dadka isku diraaya waxa leeyahay qalbiga hanaca iska dhaaf taas ay adii qeyr badan in kuntum mu'miniin ada mu'mintiin uqubada markay soo degto rabbi ma kala sooci doono kuwii soo dhibay iyo kuwii la sheekaysan jiray sidii ka dhacay Trabun oo kale rabbi uu isku dari doonaa waxaan ku dhaaranaa rabbil caalamiin ku dhaaranayaa inay min la uqubal labad inay baad doonto ku dhaaranayaa rabbi caalamiin ay ku dhaartay uqubal labad rabbi inuu keeni doono balse ay ku dhici doontaa waxay ku wajahantaa dadkii dunida ugu soo dhibay nolosha baabiyay dhaqan iyo dhaqaale baan muddo iga dhigay dadkaas ku